السلام عليكم. السلام عليكم عروري. ان وانيغا maanta idinku soo laabtay. maxaan dhahdaa alxamdulilah, waxaan rajeynayaa nolol caafimaad iyo barwaaqadayna ku nooshihiin ayaan idin rajeynayaa. waxaan rabaa maxaan dhahdaa buug kale maanta idin akhriyay insha allah bismillaahi kariim. waxaa la yidhahdaa it's okay to be different. baa buuggaa la yidhaahdaa. macnaha waxa weeye it's okay to be different, waxa weeye dhibaato ma laha ina maxaan dhahdaa ina kala nooc dadku ay noqdaan. qof walba sibuu ilaahay u abuuray. waxa weeye macnuhu waxa weeye qof walba sibuu ilaahay u abuuray. caruurta maxaan dhahdaa qaar baa curyaana, qaar baa maxaan dhahdaa indhala, qaar baa maxaan dhahdayey fahamkoodu yaryahay, qaar baa maxaan dhahdayey maxaan dhahdaa hadalka ku adag yahay, qaar baa qofba sibuu weeyaa. markaa it's okay calashaan waxa weeye it's okay to be different. dhibaato ma laha haddaad wax aad maxaan dhahdayey kaga duwantay caruurta kale, dhib ma laha, waa okay weeyaan. waxa weeye waa siduu ilaahay qof walba u abuuray. qaar baa fahamkoodu yaryahay, qaar baa fahamkoodu fiican yahay, qaar baa hadalkoodu degdeg u jawaaba, qaar baan hadalkoodu si fiican u jawaabin oo waqti qaadanaysa. qofba waa si weeyaan. marka waxa weeye macnuhu waa sidaa weeyaan, it's okay to be different. marka buggana maanta idin akhriyayaa sida aniga caadada ii ahayd. waxaan idinku akhriyayaa marka hore sidii farti lagu soo qoray englishti, then markaasaan maxaan dhahdaa idin turjubayaa Soomaali. maxaan af Soomaali kuwan idinku sheekaynaya. okay, we are all different. Do you know each and every person is different? It's true. waxa weeye waynu kala wada duwanahay, qofba waa si. marka waa wax maxaan dhahdaa reality oo maxaan dhahdaa la ogsoon yahay. if everyone look at the act the same, how look we know who was who? haddaynu wada ahaan lahay dad si wax u wada qabsada ama laysu wada egyahay, laysma kala garteen who is who. waxa weeye iminka maxaan dhahdaa adduunyadan ilaahay markuu abuuray maxaan dhahdaa aadamaha, qof waa madow, qof waa casaan, qof waxa weeye midabka Asiaanka, qof waa maariin, qof wuu dheer yahay, qof wuu gaaban yahay, qof wuu buuran yahay, qof wuu dhuuban yahay. maxaan dhahdayey waa kala duwan yihiin. qof baa xoog weyn oo wax walba qaban kara, qof baa daciif aan waxba qaban karaynin. marka maxaan dhahdayey dadku way kala duwan yihiin. in laysku ceebaysto oo laysku caayana ma fiicna. okay, second, some kids love swim, some likes hike. waxyaabaha iminka tan waxay leeyihiin caruurta qaar waxay jecel inay dabaashaan, qaarna waxay jecel inay socdaan oo meelaha buuraleyda socdaalka maxaan dhahdaa la soconayo una maxaan dhahdayey hike ay jecel caruurta qaar. waxa weeye waa run, qof walba dooq buu leeyahay, qof wax buu jecel, qofna waxa ma jecla. caruurta qaar waxay jecel inay dabaashaan, qaar waxay jecel inay socdaan oo meelaha tagan maxaan dhahdayey buuraleyda dhulka. marka taas weyn macnuhu. some like dance, some love bike. caruurta qaar waxay jecel yihiin dhaansaan oo ciyaaraan dhansa musiga oo kale. qaar waxay jecel yihiin inay cycle-ka wataan, bicycle-ka wataan ee ordaan. activity badan bay leeyihiin qaarkood. it's true. we are all different. some kids love coloring blue, some adore yellow. waxa weeye waa still waynu kala duwanahay. caruurta qaar waxay jecel inay wax sawiraan oo maxaan dhahdaa qaar waxay jecel yihiin midabka bluega inay wax ku sawiraan, qaar waxay jecel yihiin midabka huruudiga inay wax ku sawiraan. qofba waa si. maybe pink is a favor if your favor color dislike little fellow. maybe laga yaaba caruurta qaar waxay jecel yihiin midabka pinkiga inay wax kusoo sawiraan. waa qofba siduu ilaahay u abuuray. waxan oo dhan waa waxa madaxa ku jira oo ilaahay inagu abuuray. midabada mid baad jeceshay, mid baad neceb tahay. cuntada mid baad jeceshay, mid baad neceb tahay.
dadka bini-aadanka aad la saaxiibaysa qof baad nacaysaa oo aanaad ka helaynin, qof baad jeclaanaysaa oo maxaan oranaysa okay qofkan saaxiib baynu noqon karnaa. hadallada qaar baad diidaysaa oo dhibsanaysaa qof markuu kugu yidhaahdo, hadallada qaarna waad jeclaysanaysaa. waa saasoo kale la kala yahay. markaa maxaa dhahday differentku waxa weeye waa wax maxaanad aada inoogu maxaan dhahday bini-aadanka ugu badan. some kid love build tower out of block. waxa weeye waxaan yara carruurta maxaa legooga oo kale ay ka sameynayaan tower. marka towerkaas maxa qaba carruurta waxaase legooga inay sameeyaan, dhisaan oo hagaajiyaan. marka carruurtu way kala duwan yihiin. qofba si buu ilaahay u abuuray. marka qof baa wuxuu jecel yahay inaanu hadlin inta badan, uu aamusan yahay. qof wuxuu jecel yahay inuu hadlo oo sheekeeyo. waa qofkeenana uu furfuran yahay, qofna wuxuu xidhan yahay baynu dhahnaa inagu af soomaalida handilna. qofkaas wuxuu xidhan waa qof aamusan oon hadal badnayn, hadalkiisu waa wax yara kooban bas. qofna uu hadal badan yahay, uu sheekeynayaa. qofka waxa waa bashaash, maxaan dhahdaa waa qof furfuran oo dadku way kusoo hiranayaan wajaa. qofkan laakiin aamusan waa laga yaraa gabanay xidhan way aamusan yahay. markaa aamusnaantaas dadku kaga yara gabanayaan. marka maxaan dhahaa dadka waynu kala duwanahay. maxaan dhahaa soomaalideena inteeda badan carruurtooda markay kala duwan yihiin uma garaabaane way ku caayaan. taas waa caadideena, waynu ku cayna ilmaheena wuxuu kaga duwan yahay ilmaha kale. hadduu aamusan yahay ama fahamkiisu yar yahay ama aynu maxaan dhahdayey aanu dhaqdhaqaaq badan aanu lahayn oo xarakaad badan aanu lahayn, qofka waxaynu la daba taagnaanaynaa dube. caynkanaa tahay, nacs baa tahay, sidanaa tahay, kanaa tahay, kiyow, kaney, tiyey, waxaasaynu dhuraynaa. marka carruurta way maxaan dhahdaa different. dadka bini-aadanka different baa lagu kala yahay. marka in carruurtii la kala sooco maaha, inubadkii aynu kala soocno maxaan dhahdaa maaha. carruurta qaar baa cunto jecel, qaar baa cunto neceb. anu waan arkay waalido carruurtooda cunto jacaylka cuntaday cunayaan ku caayaya baanu arkay life u soo taagan oo ilmihii ku caaya. ilmahaasi damage baad u geysanaysaa maaha. ilmahani maxaan dhahdayey cuntada waxa laga yaabaa psychology problem ba haysta. psychology problemka qofka sibuu u qabtaa, qofba sibuu u ataagaa xanuunkani. qaar buu cuntada ku eriyay odhan cuntada cun oo maxaan dhahdaayey eating disorder bay yidhaahdaan qaybtaa odhani cun. oo cuntadii maskaxdiisa waxay jeclaanaysa wuxuu la saaxiibaya, maskaxdaas waxay la saaxiibaysaa cuntadii because xaggii kale waa laga soo caydhsanaya, waa la cunaya, waa lagu qaylinaya, waa la maagaya, waa la caayaya. markaa waxa keliya aan caayaynin ee aan waxba maxaan dhahday ka sheegaynin ee soo dhawaysanaysa jeclaanaysa waxaa weeye qaybta cuntada. qaybtaasuu la saaxiibaya qofkaasi, ama ha weynaado ama ha yaraado. markaasuu maxaan dhahday qofkii ma la odhanayo maxaa qofkan ka khaldanay, waa lasii cay. ninka lasii cayno isaguna cuntadiibu qofka kusii ordaya. cuqdadna wuu qaadayaa daa'imana oonu qofkaasi uu ku godgelayo oo waalidkiisa ugu qaadayo iyo walaaladii. marka haddaa aragtan ilmihiina sidaas ha ku caayina cuntada. cuntadiisa limit u sameeya, dabagala, si fiican ula hadla, qiyaasa cuntadiisa, qiyaas ka dhiga. maxaan dhahdaayey waxyaabahan markuu cunto uu doonaya biyo siiya ama waxa siisan maxaan dhahdaa fruit wax ku mashquuliya. ka mashquuliya qaybtan cuntada uu ku ordayo. isaga dib u wareysta, weydiiya maxaad tebisa, maxaad rabtaa, maxaad doonaysaa, maxaad jeceshahay. marka waxaa laga yaabaa waxa inuu kasoo jeesto u deetana normalkii noloshii normalka dariiqii normalka u raacay ilmahaasi. waxaa jira ilmo aan fahamkiisu yaryahay, kii damiinkaha baynu odhanaynaa, kii damiinkaha waxba fahmayna baynu odhanaynaa. intii yareed laga yaabaa wax yar wuxuu ku fahmi lahaa, intiina waa duulaysaa because waa lagu qayliy. markaad ku qaylisay ilmahaagi de wuxuu sii duulaya wixii intii baa kasii duulaysaa. damiinka aad ku sheegaysid ayuu noqonaya.
kaana cuqdad buu ka qaadaya. ilmaha qaar baa jecel inay socdaan oo baxaan, ilmaha la socdo la baxa la soo wareega, laakiin kelidii hakaga tegin, laakiin la socda. qaarba qofba wuxuu jecel yahay, sida iminkasan buuggan ugu akhriyay different, everyone there's a different bay dhahdeen. waran qaar baa maxaan dhahdaa hadalku ku adag yahay, qaar baan hadalku ka soo baxayn, qaar baa maxaan dhahdaa aragtidoodu daciif tahay, qaar baa curyaamiina, qaar baa maxaan dhahdaay dhega culus ama dhegala, qaar baa waxa laga yaabaa maxaan dhahdaa xubnaha jirka aan ku dhalano ama fari ka dheer tahay, fari ka maqan tahay ama fari dheeraad ku tahay, wuxuun maxaan dhahdaay saayid ku yihiin. ilmaha qaar baa wixii oo dhan uu leeyahay, waa caafimaad, inuu qof caafimaad leh buu u egyahay, laakiin xanuun baa jirkiisa ku jira, xanuunkaasaa daciif ka dhigaya, dhaqdhaqaaqii xarakaadkii badnaa ma laha, mid baa ordaya oo xarakaadkii wixiiba ka bateen. markaa qof walba waa different. markaa caruurihiin hoos u eega, idinka laftigiin hoos isu eega, ha isku caayina sida ilaahay idinku abuuray. ilaahay abuurtiisa ha isku caayina, qofba sibuu ilaahay u abuuray. ilmaha ama hooyada ama aabbaha ama qof kale sida uu ilaahay u abuuray ku qaabila oo ku ixtiraama. ixtiraamkeeda waxa weeye 100%. haddaynu ixtiraamkaa aynu iska helno waxbay nagama xumaadeen, wax allaale wax naga xumaadeen ma jirto. markaa qof walba qofkaaga hadduu wax ka khaldan yihiin ha ku ceebaynin, ha ku dacaayadaynin, ha ku xamanin. waa inaad maxaan dhahdaa ku support garaysaa, ood qalbigana u qaboojisaa, ood qalbigana niyadiisana u dhistaa. caruurta yarna waxaan leeyahay idinkuna haddaa isku aragta qofka kale, ilmaha kale inuu idinka yara duwan yahay, maya. ama ilmaha kale qofku wuxuu jecelyahay inaad tiraha aniga kan ma jecli, kanaan jecelay la jeclo oo aynu kan wada qabsano, may. wax laga qasab ma jirto. do not force other kid if they don't like it the same thing you want it. No, everyone they're different, everyone they can choose whatever they want it. ma fahanteen? marka maxaan dhahdaa insha allah bismillaahi kariim intaasaan maanta kaga baxayaa. waxaan jecelahay oon rajeynayaa inaan insha allah mar dambe isu soo noqono. dee ciid mubaarak. ciidiina idin lamaan soo xidhiidhin, ciidii aniga mashquul iska noqday oo de waanu iska ciideynay, waa la iska faraxsanaa alxamdulilah. markaa maanta waan idinka yara baaqanay. marka insha allah bismillaahi kariim waan idinla soo xidhiiri doonaa, waxaana cajalado kale aan idiin soo duubi doonaa. dee waxaan rajeynaya inaad ka heshaan. dee waxaan idin maca salaama iyo daawasho wanaagsan. yara suga, waxaan intaasaan iskaga hadhayaa. dee ciid mubaarak, ciid mubaarak. maxaan khayr baan idin rajeynaya. maca salaama.